horyaalka heerka koowaad ee kubadda cagta waddanka waa isha ugu weyn ee kubadda cagta Soomaaliya waxaana ku xifaaltama kooxaha horyaalka heerka koowaad ee Soomaaliya xiriirka Soomaaliya kubadda cagta ayaa isbedel weyn ku sameeyay xil ciyaareedkan waxaana horyaalka maalgelinaya sanadkan bangiga IBS dhawaan magaalada Muqdisho waxaa heshiis taariikhi ah ku kala saxday bangiga IBS iyo madaxda xiriirka Soomaaliya kubadda cagta waxaana heshiiskan uu qayb ka yahay dadaalada horumarinta kubadda cagta Soomaaliya waxaan aad ugu faraxsanahay heshiiskii dhawaan aan la saxan xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed heshiiskaas oo la xiriiray taabagelinta iyo horumarinta ciyaaraha dalka gaar ahaan ciyaaraha heerka koowaad ee dalka kaasoo xilliga hore la dhigi jiray Somali Premier League hadda soo loo baxshay Somali National League IBS Bank markaas wuxuu taagan tahay dhiirigelinta iyo garab istaagga dhalinyarada Soomaaliyeed si gaar ah bangiga caalamiga IBS Bank wuxuu markaan xoogga saari doonaa horumarinta ciyaaraha dalka iyadoo maaragtay diiradda la saari doono in wax badan laga bedelo habkii ay jirtay ciyaaraha dalka waxaan aad ugu faraxsanahay in barnaamijkaas taabagelino sanadaha soo socdo waxaan rajaynaynaa isbedel weyn aan ku sameeyno ciyaaraha guud ee dalka si gaarana garoomada iyo waxyaabaha la xiriira ciyaaraha heerka koowaad ee dalka waxaan wax badan ka bedeli doonaa sidii ay jirtay ciyaaraha liiga waxaan ku soo kordhin doonaa fikrado cusub sidoo kale waxaan ballaarin doonaa waxyaabihii lagu soo bandhigi jiray ciyaarahaas hadday noqoto abaalmarinada hadday noqoto qaabkii loo soo muujin jiray wax badan insha Allah ka bedeli doonaa IBS ahaan mar walba wuxuu u taagan tahay dhiirigelinta iyo garab istaagga guud ahaan ciyaaraha dalka gaar ahaan ciyaaraha kubadda cagta Soomaaliya qaar ka mid ah kooxaha kubadda cagta Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay heshiiska taariikhiga ah ee maalgelinta horyaalka heerka koowaad ee Somali National League aad iyo aad u soo dhaweynayna waxaan leenahay xiriirka Soomaaliya kubadda cagta halaba jibaaro dadaalada oo indhaha hay'adaha ama shirkadaha uu ugu soo jeedinayo ahmiyadda ay leedahay in laga qayb qaato horumarka isboortiga gaar ahaan kubadda cagta waxaan u mahadcelinaa xiriirka hawsha oo qabtay oo dadaalka dheeraadka oo sameeyay horumarinta isboortiga sida uu ugu dadaalayo waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa IBS inay ka qayb qaadato horumarka isboortiga guud ahaan bahda ciyaaraha Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay heshiiskan taariikhiga ay wada gaareen bangiga IBS iyo soo kale mas'uuliyiinta xiriirka Soomaaliya kubadda cagta iyadoo bangiyada kale ee waddanka ugu baaqay inay maalgeliyaan qaybaha kala duwan ee ciyaaraha bangiga la yiraahdo IBS taariikhda isboortiga iyo taariikhda Soomaaliya ayuu meel dahabi ah ka galay arrintaa marka waxay keenaysaa in hay'adaha kale oo financial institutionka ah oo sida bangiyada kale in ay arrintaa ku daydaan oo isboortiga iyo kana ay ka qayb galaan aniga anoo ku hadlaya magaca inta isboortiga soo dhashay ilaa 60meeyadii IBS waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin xiriirkana aad iyo aad u mahadsan taariikhdaas inaan ka mid noqdo on sportiga wali ku jiro iyadoo institution financial institution ay yani maalgelinayso sportiga inaan sportiga wali ku yeesho aad iyo aad u faraxsanahay dadka sportigana waxaan leenahay ha u dayma la aadaan bangiga IBS gudoomiyaha xiriirka Soomaaliya kubadda cagta mudane Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine ayaa sheegay in horyaalka heerka koowaad ee dalka sanadkan laga bedelay magaca soo kalena ay maalgelinayaan mas'uuliyiinta bangiga IBS wuxuuna ganacsatada Soomaaliyeed ugu baaqay inay maalgeliyaan qaybaha kale ee kubadda cagta Soomaaliya horyaalka IBS International Bank waxaa la galay heshiis waxayna maalgelinayaan horyaalka Somali National League waxayna ka mid yihiin dad badan oo saaxiibadeen ah oo kubadda cagta inay wax ku bixiyaan raba aadan marka aan ugu faraxsanahay aadan u soo dhaweynaynaa waxaan rajaynaynaa insha Allah ma aha heshiis kaliya inay baartina la noqdaan waxaan rajaynaynaa kubadda cagtana aan meel wada geeyna dilaha horyaalka heerka koowaad ee Soomaaliya ayaa salooyinkii la soo dhaafay waxaa magac ahaan loogu ciyaari jiray Somali Premier League waxaan xil ciyaareedkan iyo wixii ka dambeeyay horyaalka uu noqon doonaa Somali National League